السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا ولا لها كحرنا كان سهل عصب ولا ليال موضوع إنه ما أنت حسام هاي قف والبا أو دوكن شوي مرؤنا أيوب لوها محاك ودنا لصع موضوع ما أنت وموضوع عادي هذا مهمة ولا ليال وحى أدونك شوجة هرمر يوحى أدونك شوجة قف علمي يقانا أما قف وحبر شهير كجاري waxaad ogaataa mar uun buu qofkaasi bilow ahaa ama haddii aad aragtid shay qaaliya oo adduunka yaala mar buuna jirin ama mar ayuu bilow ahaa walaalayaal qof kasta waxaad ogaataa marka uu wax baranayo ama uu rabo inuu shay u gacan qaado inuuna ku dhalan ee uu sameeyay inuu naftiisa horumariyo oo shaygan ka midho keeno oo mar ayuu bilow ahaa walaalayaal waxaad arkaysaa qof shahaado haysta dictoora haysta qof cilmi yaqaana oo ay u joogto heerka u dambeeyay shaygaasna ama cilmigaasna ama fannigaasna dhinac kasta ka yaqaana markaas saasad oo arkaysaa waxaad lahaysaa alla kanoo kale iga dhiga kanoo kale waad noqon kartaa waxa ka xiga uun waa inaad dadaasho waa inaad sidiisa aad ka midho keento oo isba uu bartay kuma dhalanay aad ku barato sida u barto kale walaalayaal waa arrin aad iyo aad u muhiim ah oo looga baahan yahay inuu sameeyo qof walba oo u baahan horumar iyo inuu naftiisa gaarsiiyo meel sare inta uu adduunyadan joogo ugana tago magac iyo cilmi iyo wax lagu soo xasuusto walaalayaal si aad u keentid shay walba oo aad shay walba uga midho dhalisid waxa laga baahan yahay afarta qodob kow dadaal oo naftaada dadaal muuji oo wax walba ku dadaal oo shayga markaad u gacan qaado dadaal oo waayo qofkan shayga aadka u yaqaana isba kuma dhalan ee dadaal iyo tacab badan ayuu galiyay markaas ayuu gaaray meeshuu rabay adna waadiga maanta la taloosan u gaaraa marka waxaad ku gaari karaysaa inaad dadaasho qodobka ku xiga dulqaad muuji iyo sabir inaad adkaysato qof adkaysi leh qof caqabad walba ka hor timaada aysan la tagin noqo qof caqabad walba ka hor timaada jeero noqo qodobka kale ee ku xiga waa inaad ku celcelisaa shayga aad u baahan tahay oo aadan ka daalin oo mar walba haddii aad ku guul dareysato aad ku celcelisaa waxa la dhahaa guul darradu waa midhaha ama horumarka inaad guuleysato ayay hordhac u tahay inaad marba fashilanto marka walaalayaal ku celceli shayga aad u baahan tihiin kadibna si aynu u guuleysano haddii aynu ku celcelino shaygan u baahanay waa guuleysanana qodobka ku xiga waa inaynu nafteena bedelnaa oo nafteena aynu ka dhignaa meesha ay joogto inaynu ka qaadno oo aynu nafta bedelnaa ilaahay quraankiisa ayaa waxa ku leeyahay waxa uu ku lahaa ilaahay aayad kamid ah quraankiisa in allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ilaahay ma bedelo qoom ilaa ayagu naftooda bedelaan haddii aan adigu isbedelin oo aadan meesha kor iskaga qaadin ilaahay ku bedeli maayo meesha kor iskaga qaad oo isbedel ilaahayna tala saaro ilaahay waa ku kaalmeynaya qodobka u dambeeya walaalayaal isku kalsooni muuji iyo wax loo yaqaano kalsoonida nafta ee thiqatu nafsi la dhaho haddii aad kalsooni muujiso oo aadan cidna ka biqin oo shay walba markii kugu horeysay wayana aad bilowdo adaan cidna ka baqayn waxa shaki la'aan inaad shayga ka midho keenayso sidii qofkii aad u lahayd qofkan heer ayuu ka gaadhay sidii ayaan u gaadhaa haddii aad tilaabooyinka raacdo waxaad noqonaysaa qof shay walba oo adduunkan jooga ama cilmi kasta oo adduunkan yaala midho iyo waxtar ka keena walaalayaal mawduucina maanta intaas ayuu ku saabsan yahay haddii aad ka heshay like noo saar haddii aad ku cusub tahay channelka saan cusubna subscribe noo dheh mahadsanid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh